وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته وعمل بسنته إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، cashirkayna axkaamta shareecada islaamka maanta waxuu ku saabsan yahay azakaat. zakaduna waa zakaatulxayawaan ama nicmooleyda, xayawaanle ama nicmooleyda. mashruuciyadtuha sida loo jideeyey ayaanu ka sheekayhaynaa, shuruudeedaan ka sheekayhaynaa, anwaacdeedaan ka sheekayhaynaa, nisaabka ay qayb walba uga waajibayso, nooc walba uga waajibayso sakada aan ka sheekayhaynaa. xoolihii la isku dartay oo maashiyada ahay sakadoodii ayaan ka sheekayhaynaa. axkaam kala tagsan oo ay ka waajibayso sakadu ayaan ka sheekayhaynaa. waxaan ka sheekay doonaa sakadu ma cayntay ka waajibtaa mase nimaday ka waajibtaa. waayahay, waxaan gudagalaynaa markaan mashruuciyatu zakaati alxayawaan. xayawaanka sakadiisa mashruuciyadeeda, yacnii sidee loo jideeyey, wakhtigaa la jideeyey, say u waajibtay, see loo kala xadiday waaya macnaheeda. taqararat fardiyatu zakaati alxayawaani fi sanati nabawiyati fi axaadiid saxiix fi sunati nabawiyati fi axaadiidi saxaaxin aw xasanatin ashharuha. waxay ku sugnaatay sakada xoolaha faralnimadeeda inay faral tahay waxaa sheegaya sunnada nabiga iyo qur'aanka. laakiin qur'aanku waa mujmal, axaadiid buu ku sheegayaa oo saxiixa ama xasan ah. waxaana ugu mashhuursan axaadiistaas xadiidka uu leeyahay abubakr asidiiq radia allahu canhu, almutalamin miqdaara zakaati alibili. wuxuu isu keenayaa ou kulminayaa sakada qadirkeeda, geela sakadiisa qadirkeeda iyo nisaabka ay uga waajibayso, sakada xoolaha maashiyada iyo nisaabkooda, kayfiyada xoolaha la ysku dartay looga sakaynayo, iyo wixii ka baxa oo ah mawaashi kale. xoolaha aan ahayn harimaad, xoolo duquubay ama indhalaaboshina, iyagana waa laga sheekaynayaa. waxaan bilaabaynaa marka xadiidkii mucaad ibnuljabal oo ka sheekayhaya lo-da sakadeeda nisaabkeeda, isagana waa gelaynaa. culummadu waxay isku waafaqeen, ay ku kulmeen sakada xoolaha inay waajib tahay. nicmooley markaad maqasho maxay tahay? waa geela, lo-da, ariga. waxaa shardi haddana inay unsiya tahay, unsi aysan waxshi ahayn, waxshiyaad aysan ahayn. waxshiyaad macnaha waxaa weeye xoolo cararaya oo duurka gelaya oo hadday kuu jeedaan ku dilaya aysan ahayn. laa fil khayli, fardaha kama waajibayso sakadu. raqiiqa addoomakana ka waajibi mayso. biqaal baqallada ka waajibi mayso. xamiir dameeraha ka waajibi mayso. addibaa eelada iyo cawsha ka waajibi mayso. wa awjaba abuu xaniifata azakaata, abuu xaniifa wuxuu waajibiyey sakada oo fardahu ka waajibiya, khilaafan lisaaxibayni. laakiin labadiisa tilmiid oo saaxiibyaalkiisa ah, maxamed bin xasan ashaybaani iyo abuu yuusuf, lama qabaan. waxay yidhaheen laa zakaata fi lkhayli, saasay yidhaheen. ra'yigooda ayaana hadda xanafiyadu ay jawaabtaa, kaasaa hadda laga jawaabaa. shuruuda wujuubu zakaati alxayawaani, xayawaanka sakadiisa waajibkiisa shuruudda ay leedahay, culummadu waxay isku waafaqeen 5 shardi inay tahay, inkastoo qaarkeed la isku khilaafay. an takuuna alancaamu wahiya alibilu walbaqaru walqanam insiya. waxaa la rabaa xoolaha laga sakaynayo inay yihiin xoolo insi ah, geela, lo-da, ariga. insi maxaa looga jeedaa? walaa waxshiya aysan ahayn
waxshi maxaa looga jeedaa waa xoolo hadday ku arkaan ku dilaaya waayo oo kaa cararaaya sida geela austraaliya oo kale ma lagu tasarufi karo ma la manaafacadsan karo ilaa in ugaar ahaan loo isticmaalo mooyaane beec ahaan xataa ma gelaya waxaa shardiya qofta shayga haddii laga gado inay ku tasarufi karto laguma tasarufi karo laakiin sidii ugaar ahaan camal ayaa loo ugaarsadaa waa mararka qaarkood dayaarday ku rusheeyaanba xataa waa ama almutawalidu can ilinsiyi walwaxshiyi kii ka dhashay neef insi ah iyo neef waxshi ah waxshi waa neefka cararaya insina waa neefka dadka la noolaahaya geela iyo ariga oo guri joogtada iyo xoolaha iyo gasada iyo la geliyo weeye kalmutawalidi min ashaati wadabyi waxshiga waxaa waaye kii ka dhashay neef ari ah shaato ari ah iyo dabyi cawl ama deero kay iska dhaleen wey aw ilmutawalidu min albaqari alahliyi waalbaqari alwaxshiyi ama kii ka dhashay lo'da ahligaa looda ahligaa maxay tahay waa looda la isticmaalaa hadda oo hadday ku aragta aan ku hirtihayn oon ku cidiyaysahayn oon ku dardaraynin waxshigana waa midda cararaysa waayo macnaha falaa sakaata fiihi cinda shaaficiyati xoolahaas qaarna waxshi yihiin qaarna insi yihiin kay iska dhaleen madhabta shaaficiga seka ma leh iyo wa fi lmashhuuri cinda almaalikiyati maalikiyadana ayadana ma qabto inay saka leeyihiin lianna alasla cadamu lwujuubi waa wax ka waajibaya ma jiraan ay ku leeyihin laxaynahullah intifaac laguma intifaaci karo waa waxshiyow noqdo waxshiyow isu bedelaa waxshigaa la qalibaa waxshigaa walaa nasa walaa ijmaaca fii dalika nasna ma jiro ijmaacna ma jiro id laa yudlaqu calayhi ismu shaati neefka ay iska dhaleen shaata laguma magacaabi karo ri laguma magacaabi karo hadday iska dhaleen wa huwa mutawalidun bayna waxshiyin wa gayrihi fa ashbaha almutawalid min waxshayni waxau shabahaa buu yidhi shaaficiyadu waxay leeyihin lama waxshi neefkay iska dhaleen ou shabahaa waxshi waxaa la yidhaha xoolaha cararaya ayaa la yidhaahaa ama deerada iyo ugaadha waaye adigaan ugaadha iyo xoolaha kale waa isboodaan markay isboodaan oy isrimiyaan muxuu ahay neefkii kii unsiga ayaa la qalibaa waxaa qaalib noqonaya kan waxshigaa kaasaa xoog badihaya kaasaa xoog badan marka neefku waa ku soo baxaa neef waxshiya hataa suuradda insi ah ha yeesho hadduu doono xanaabaladu waxay yihiin tajibu fiihi zakaatu saka waa ka waajibaysaa kaas oo bayna shay-ayni ka dhashay kalmutawalidi bayna saa'imatin wa macluufatin wuxuu la mid yahay midkii ka dhashay xoolo soofaaya iyo xoolo la calfiyo macnaha gurigaa lagu hayaa waxbaa la siiyaa waaya macnaheeda waayahay xanafiyaduna waxay yidhaheen in kaanat ilummu ahliyata hadday tahay hooyadu hadday ahli tahay oo insi ay tahay ama xoolahan ahliga ah oo caadigaa ay tahay wajabat fiihi zakaati waa ka waajibaysa wayukamalu fiihi annisaabu waa lagu kamilayaa ilaa falaa haddaysan insi ahayn oo waxshi ay tahay sika ma leh waladulbahiimati yatbacu ummahu yuur waladulbahiimaha hooyadiisow raacaa ee aabbihii ma raaco macnaha wuxuu leeyahay neefkan oo waxshigaya neefka insiga hadday iska dhalaan waa xanafiye kan hooyada haw raacaya ho waxshigaa maxaa yeelay ama hadduu insigana insigow raacaa hadduu waxshigana waxshigow raacaa hooyadiisow raacaya haw leeyahay waa xanafiya waa shardiga labaad waxaa weeye shuruudda aan qaadana marka an takuuna alancaamu baaliqatan nisaaban sharciyan cala annaxwi almubayani fi sunnati waaya kamaa sayuwadaxu fi zakaati kuli nawcin xoolaha nicmooleyda marka laga sakaynayo waxaa shardi ah inay nisaab gaarto sharci ahaan inay nisaab gaarto ayaa la rabaa sharci ahaanaa ku iri sharci ahaan saas waay waa in wax nisaab ka yar saka kama waajibayso waaya nisaabka wuxuu yahay saa kuu sheegi doona waxaa nisaabka yahay isagaa kuu sheegi doona nisaabku waxaa weeye tiro oo markaa tiradaas waxau ahay
la ogaanayo hadduu tiradaas gaaro waa nisaab la leeyahay macnaa geela waxaa ugu yar 5 geelaha ugu yar nisaabka arigana 40 ugu yar maaragta waxaa ugu yar lo'da 40 ugu yar marka nisaabku waa kaas laakiin nisaab walba wixii laga bixinayay oo xayawaanka laga bixinayo sidoo yahay iyo suuradiisa waa ku tegaynaa laakiin hadda wuxuu ku sheegaa nisaab inay gaarto kaliya waaya waxa weeye haddana waxaa loo baahan yahay inuu sanadku soo wareego oo xawla la shardiyaa inay mulkigiisa intay ku jirtay aysan sanad ka yarayn waa markuu hantay oo hanti kaamila ay gacantiisa ku noqotay oo milkigiisa ay naqatay waa inuu sanadka soo wareegaa xoolaha mulkigana uu baaqi yahay sanadkoo dhan oo gacantiisa ku jiro haddii uu sanadka qaarkiis milkigiisa uu yahay inta kalena aysan milkigiisa ahayn lam tajib calayhi sakaatu saka kama waajibayso maxaa yeele xadiidkaa ku soo arooray laa sakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawlu saka ma jirto sako inta sanad uu uga soo wareegayo waliannahu laa yatakaamalu namaacu lmaali qabla tamaami alxawli wuxuu leeyahay waa cileeye waa sababeeye kaamil ma noqonayo xoolaha ama hantida kaamil ahaashadeeda intii sanad ou taam ka naqdo wadaalika ilaa fi nitaaji mooyaane fa inahu yatbacu lummahaat fi lxawli haddii nitaaji ou jiro waxaro iyo nirgo iyo weylo iyo hadday jiraan waxaas hooyadooday soo raacayaan ayaga hooyaday buuxinayaan takaamul lagama raba ayaga walow saala almulku can isaa'imati can ilmaashiyati fi lxawli can nisaabin aw can bacdihi bibaycin aw gayrihi facaada bishiraa'in aw gayrahu aw baadala bimithlihi mubaadalatan saxiixatan laa litijaara ka ibilin aw bijinsin aakhara ka ibilin bibaqarin ista'nafa alxawla ay bada'a xawlan jadiidan liinqidaaci alxawli alawali wuxuu shiikhu leeyahay haddii mulkigu ou ka suulo maashiyada sanadka dhexdiisa nisaab ka yaraado ama qaarkiis ka yaraado beec ou uga yaraado waa la geday amase si kale ayaa loo waxeeyey haddana shiric wax kala inta la iibiyey aa lagu soo daray amase waa mubaadala waa qayb ka mid ahaa la bedelay oo qaybkii sanadka uu u socdoo la rabay in laga sakeeyo yaa bedel saxiixa lala galay tijaarana ma aha ganacsina ma aha geel lagu bedelo wey ama jinsi aakhare lagu bedelo geel baa waxaa lagu bedela lo sanad cusubaa la bilaabaa marka oo xawl ah oo jadiid ah maxaa yeelay liinqitaaci alxawli alawal sanadkii hore wou go'ay bimaa facalahu wixii uu sameeyey ayuu ku go'ay asagaa kala googooyey ninkii xoolaha lahay fa saara milkan jadiidan oo hadda naqanaya falaa budda min xawlin jadiidin sanad cusub waa inuu marka bilaabaa saas weeye wuxuu leeyahay xoolaha marka laga sakaynayo waa sheegnay xawl waa sheegnay nisaabna waa sheegnay maxaa kale hadday xoolo tahay waxaa la shardiya haddana kownuhaa saa'imatan xoolo foofaya ay raaciyatan fii mucdami alxawli sanadka intiisa badan wixii 6 bilood ka badan waa inay saa'imo tahay mid soofaysa weeye oo daaqaysa mid soofaysa ee daaqaysa waaye laa macluufatan mid la calfinayo meel lagu xiray maaragtay oo raashin la siihayo aysan ahayn walaa caamilatan mid shaqayhaysana aysan ahayn fii xarfin caragidin ka shaqayaysa beero iyo wixii lamida wa haadaa shardun cinda aljumhuuri jumhuurtaa qabtooda oo aan maalikada ahayn lixadiidin fii kulli saa'imati ibilin geel kiisa soofaysa kulligeed fii 40 hadday gaarto bintu labuunin ayaa laga rabaa wa xadiid kalaa jira waaye oo laha fii sadaqati alghanam fii saa'imatihaa idaa kaanat 40 ilaa
20 و100 شاة وتقاس البقر على الإبل والغنم ومن walba nisaabu le nisaabkiisa loo fiirinayaa wuxuu yidhi shiikhu wuxuu sheega ariga markuu soofayo 40 waxaa laga rabaa neef markay gaarto 120 ay gaartana shaataa laga rabaa lo'da ibilka iyo iyagana miisaan bay leeyihiin ariga iyo lo'da watuqaasu lbaqaru cala alibili waalghanam geela iyo lo'da lagu qiyaasaa iyo mid walba nisaab ule mid walba nisaabkiisa geela waxaa ugu yar 5 ugu yar wey macnaha inta laga bixinayo waxii laga bixinayo ma anaan gaarin laakiin inta seke laga bixinayo ka hadlaynaa saa'imadu waxaa weeye cinda alxanafiyati iyo walxanaabala waxay u yaqaaniin saa'ima waxay u yaqaaniin weye hiyo alatii tarca alcushba almubaaxa fi lbaraari tan cawshka xalaasha oon cidna aysan lahayn daaqaysa sanadka intiisa badan maxay ku daaqaysaa buuri biqasdi dari in laga helo darar caano in laga helo aw nasli in taran laga helo aw tasmiini xawsin oo in lagu naaxinayo oo lagu xawsinayo lagu naaxinayo aa laga rabaa taas qasadka la leeyahaba sidaasaba in xoolaha loo daajinayo in caana laga helo inay taranto inay naaxdo waayahay waa in asaamaha hadduu soofiyo oo racaha ou ilaaliyo u dhowriyo lidabxi inuu gowraco rabaa marka aw ilxamli inay maxuu ahay urowdo awir rukuubi ama xamli wax lagu qaado iyada laftirkeeda awir rukuubi in la koro oo rukuub laga dhigto aw ilxarti in lagu caragidiyo beer lagu fasho sida jaamuuska oo masar iyo ay ku fashaan iyo dadka qaar soomaalida hataa waa ku falataa falaa zakaata fiiha buur waa in asaamaha haddau foofiyo litijaarata uu soofiyo fiiha zakaatu tijaara markaas laga qaadayaa ganacsi oo xawl iyo nisaab iyo loo fiirihayaa ganacsigiisa gelaysaa warwareejin walaa yadumu alcalafu alyasiir walaa yaduru wax ma dhimaayo alcalafu alyasiir wax siisma yar oo calaf ah oo la siiyo wax ay dhibaysa ma jirto lianna lilakhari xukmu lkulli haddii oo badan yahay waxa badan kulli xukumkiisau leeyahay walianna lilakhari kan badan xukmu lkulliyau leeyahay walow calafahaa nisfa sanati sanadka niskeeda u calfiyey ou raashimayo way macnaha xoolihii waa xiraangeel haada ari haada waxuu rabaa aad aw akthar min nisfiha wixii ka badan niskeeda wixii ka badan oo calfinaya falaa zakaata fiiha 3/4 waa imaan doontaa waa ka sheekayn doonaa insha allah iyo rubuc iyo waxaas iyo waama in saamat ay racad binafsiha iyadaa sooftay iyadaa iska socotay oo daaqday biduuni an yaqsida maalikuha daalik iyadoo ninkii maalig ahayo xoolaha lahay ousan sidaas u qastaynin oysan niyadiisa ahayn ayay iyada inta sooftay soo daaqaysaa falaa zakaata fiiha zaka ma laha u leeyahay cinda alxanafiyati wa fiiha azakaatu cinda alxanaabarati laakiin xanaabalada waxay leedahay sikaa ka waajibaysa waayahay marka shaaficiya ra'yigay ka qabto ayaan dib u fiirinaynaa wasaa'imatu tii sooftay cinda shaaficiyati shaaficiyada agteeda oo foofaysa oo duurka ku foofaysa soo hooyanaysa an yursilahaa saaxibuhaa wa saaxibkeeda inuu diro maaligeedii ninkii xoolaha lahay waa inuu diro liracyi inay soo daaqdo fii kalaa-in caws amase cuno mubaaxin la baneeyey oo fii jamiici alxawli sanadka dhammaantiisa aad caws iyo caleen iyo waxay cunta waa unkala ayaa cushbi iyo wixii lamida aw fi lghaalibiyati sida haalibiyada alcudmaa oo weyn oo minhu waa maxuu ahay waa inuu asaga ilaaliyaa uu asaga dhowra waaye ama sanadka ama inta badan sanadka asaga ou ilaaliyo oo ay leedahay ricaaya iyo xifdis iyo daawo ay leedahay walaa yaduru calfun yasiirun taciishu biduunihi bilaa dararin walaa yaduru wax ma dhibaayo
calafun calaf waa siisma yar caws iyo waxyaalahaas iyo raashin la siiyo yasiirun yaroo taciishu ay noolaanayso biduunihi ay isaga ka soko ku noolaanayso bilaa dararan dhibaato la-aan bayinin oo cad ka yowmi waayo aw yowmayni waxaas inay cuntada ka go'do yowm amba yowmayni wax ma dhibayso lianna almaashiyata tasbiru lyowmayni way sabartaa walaa tasbiru halaaata ma sabarto uri qaaliban 3 maalmood hadday gaarto dhimashay tegaysaa markaas maarata waa baaba'aysaa marka laakiin 2 yoom iyo wax ma ka dhibayaan fa in culifat haddii la calfiyo wax la siiyo mucdam alxawli sanadka intiisa weyn aw fii muddatin muddo laa taciishu aysan noolaa karin biduunihi muddadaas ka soka aysan ku noolaa karin aw ase taciishu waa noolaaysaa fii tilka almuddatii ku noolaaysaa walaakin iyo bilararin bayinin dhibaato cad ay la kulmaysaa falaa tajibu fiiha zakaatu ma waajibayso waa liwujuudi lma'uunati kharaj baa yimida markaas nafaqo iyo mashaqo labadaba waa yimideen maaragta ka shaqaynteedana waa mashaqo kharajka lagu bixinana waa mashaqo taas markaas kama waajibayso waxaa yeelay waxaa timiday mashaqadii iyo nafaqadiyaa kulmeen oo la gelsha neefkan marka waxaa weeye kama waajibayso walow saamad binafsiha waa shaaficiya hadda waxaan wadno walow saamad binafsiha ay sooftay iidaa sooftoo socotay aw bificlil ghaasibi ama mid booliyey oo dhacay oo iida la tegay ayay ka sooftay aw ilmushtari kii iibsaday shiraa'an faasidan shira faasida oon sax ahayn oon shuruudu shiraa aan lahayn shuruudulbeec aan lahayn aw amase kaanad cawaamilay ahaatay fii xartin mid beera loo isticmaalay ahaatay iyo wa nalxin waraabin xamli ilmaa'i lishurbi biyo loogu xambaaro waayahay xamli ilmaa'i macnaha in la dhaansado waa la dhaansaday waayahay iyo wanaxwi kulligood waa la wada dhaamiyey iyadoo saka gaari kartaa la dhaamiyey falaa sakaata fi lasaxi saka maleh waa licadami isaamati maaliki maxayla ninka maalig ahay ma uusan soofin wa inamaa uctabira qasdu waxaa la fiirshay duuna qasdi ictilaaf qasdi oo calfin ah ma lahaayo waayo macnaha lianna sawma soofintu ama foofintu yu'athiru waxuu saameeya fii wujuubi zakaati factubira fiihi qasduhu waa inuu qasad la jiraa marka oo soofinta marka la soofinayo hataa laftirkeeda waa in walictilaafu calafsiinta oo raashin la siiyo yu'athiru fii suquudiha waxuu saamaynayaa inay sakada ka dhacdo haddii la calfiyo falaa yuctabaru qasduhu markaas la fiiri maayo lianna alasla asalka cadamu wujuubiha waa inaysan sakadii waajibin wa bidaalika sidaas daraaddeed ayaa yushtaradu la shardiyaa cinda shaaficiyada agteeda an yakuuna inuu ahaado kulla sawmi soofinta kulligeed min almaaliki waa inay maaliki ka ahaato falaa zakaata fiiha fiima saamat binafsiha falaa zakaata zaka maleh fiimaa saamad wixii soofay ama dhaqaaqay binafsiha nafsadeeda ku dhaqaaqtoo sooftay aw amase asaamaha uu soofiyey hayrulmaaliki nimaan maaliki aan ahayn booli ha ahaado waxuu rabaa ha ahaado shira faasida ha ahaado mid soo booliya ha ahaado la fiiri maayo wax qiimahay leedahay male waayo oo macnaha saka kama waajibayso ayaa looga jeedaa wayadhabu lmaalikiyatu shaaficiyadu waa dadaaleen waa kala xulxuleen masaa-ishi waa kala sheegeen marka say u kala bixiyeen cid u kala saartay oo madaahibtan kalaa ma jirto noocan markay tahay calfinta iyo soofinta iyo xoolaha hadday tahay aad fiirisa geela austraaliya oo faraha badan oo inta waxau ahay duurkaas ku bata la daaweynayo laakiin aan la iibi karin ma aragtay dayaara hadduu sii bata xataa dadkii dilaya dadkii waxay cunaya dadkii ku durdurinaya maxuu noqonaa markaas maarata waxaa shardiga shay kastoo la gato ama laga sakaynayo waxaa shardiga horta in la calfiyo calafkana uu xalaal yahay ayaa la rabaa kow inaan mashaqa aysan jirin inaysan ma'uuna aysan jirin waxaa la rabaa haddana in haddii ruuxa uu gato inuu ku tasarufi karo oo xoola uu ku tasarufi karo ruuxii iibsadaa ومذهب المالكية وأولي أن الزكاة تجب أو جبتها في الأنعام سواء كانت صائمة ها توليها مد سوفيسة أم صائمة راعية أم معلوفة مثل علفية مثل ربطها يعني وهي عمومي
ولعموم حديث أبي بكر المتقدم في الإبل أو كل شيء وحول من كل 5 شاة كواجبيس واجيلة أرجع معها إلى اللقطة ومنشأ الخلاف بين الرأيين كما يبين ابن رشد سيد ابن رشد أو عضيناه خلاف كان منشأ يسو محوية محو كذا شيء معارضة المطلق للمقيد وحو كذا شيء كان أصولي وايد وحو ليه مطلقة شيء مطلقة haddii maaragta la caarido oo muqayadka iyo iscaarilaan iyay ka imaanaysaa mucaarada daliilu khitaabi lilcumuumi wuxuu leeyahay haddana khitaabka daliilkiisa caariladiisa cumuum ou shay cumuuma ou sana ou caarido iyo wa mucaaradatulqiyaasi qiyaaska caariladiisoo licumuumi lafdiga caam ahaashadiisa ou caarido waa ka imaan kariyaa وأما المطلق فحديث في كل 40 شاة في كل 40 شاة في كل 40 شاة كواجبيس في كل 40 شاة أو من الشياه شاة كواجبيس وأما المقيد كل قيده فحديث في كل صائمة الغنم أرجع صائمة ستيس سوفيس الزكاة كواجبيس كاسي أهد فمن غلب المطلق مطلق غالب أهاشتيسة على المقيد أو كغالب أهادي وهم المالكية وهم المالكية واي مالكية وهم جيدة واي وليه قال وحول قال يعني وهم واي وحر حقيقة أين مالكية أي وضوا أي وضوا قال وحول الزكاة في الصائمة إيه وغير الصائمة أيوه صائمة غير صائمة اسكو بدو كدغاي ومن غلب المقيد كي مقيد كغالب كدغا وهم الجمهور تاسنا ايضا وهو جمهور توهميده علماء كلو المالكه اهي اذا وهم اي كتايو قالوا حول الزكاه في الصائمه الصائمه حولها لسوفينايو ومنها ايده كميده ايا لغا ربا فقط او كليعه وتغليب المقيد مقيد كإن لغلبه وغالب لغا على المطلق لغا دغنا أشهر ومشهور سيهي من تغليب المطلق مطلق غالب لغا دغو أو كمشهور سيهي على المقيد من تغليب المطلق مطلق إن لغلبه وعلى المقيد لغا غلبه تاسو كمشهور سيهي وأما دليل الخطاب ومشان أصول الفقه واي فقه يا أصول الفقه لو رغي marka xukumka usuulul fiqh loo ragay marka waxay u baahan tahay in la kala saaro ayay u baahan tahay marka baabkooda aan gaarno mid walba baab uu leeyahay aan tagnaan ku sharxayna wa ama al khitaab يعني خطابكم marka wuxuu yahay wa ama daliilul khitaab يعني مفهوم المخالفة wuxuu leeyahay مخالفه leeyahay waa macnaha khitaabka daliilkiisu مخالفه أيوه كوجي مفهوم كده فحديثه من صائمة الغنم أنيق صائمة ديسة يقتضي وحو كينايا أن لا زكاة إن سنجر في غير الصائمة في الصائمة شاة نوير مركز لا حد هنا لما شيغن مركز زكادي حد حوله سوف أيان سكا لورا أو نصابك مركز نصابك آوي نصابك هو مقيا وعموم حديث في 40 شاة 40 شاة أفرتا أريئة فيها كواجبة سيقتضي وحكينا أن الصائمة في هذا بمنزلة غير صائمة منزلة كلا أو صائمة غير كذا أنا هنا وكيني كرا وقد أخذ المالكية وحيقاتين بمبدأ أن عموم لفظ عموم كيس أقوى من دليل الخطاب خطاب كدليل كيس إنه كأود بدن يحيقاتين وأما القياس المعارض لعموم حديث قياسك أو عارض حديثك أورانا في 40 شاة حديثك أورانا محوية فهو أن صائمة تي سوفيس هي التي تي ويتحقق مقصود الزكاة فيها زكاة اللوغة قستعيو
qasadka looga qastayo oo xaqiiqoobayo wahuwa namaau waxaa waaye qasadku waxaa waaye annamaau waaye hadday soofto waa kordhaysaa aw iribxu ribix waayey waa kordhaysaa ziyaaday keenaysaa maxaa azakaatu annamaau idaaba zakaa wahuwa almawjuudu kan la helayo waa fiiha akharu dalika taas badidiisa intiisa badan saasaa lagu helaa wazakaatu inamaa hiya fadalaatu waxaa waaye fudalaatu lamwaali waaye waa waxaa weeye amwaasha fudalaadkoodi weeye macnaha walfudalaatu inamaa hiya tuujadu fi lamwaali macnaha faallil weeye tuujadu fi lamwaali asaa'imati laga helayaa falliga waxaa laga helaa xoolaha socda walidaalika ushtarida fiiha alxawlu yaa la shardiye faljumhuuru jumhuurta khasasu waxay khasiseen bihada alqiyaas dalika alcumuum cumuumay ku khasiseen falam yuujibu azakaata kama waajibin fii gayri saa'imati kama aysan waajibin walmaalikiyatuna lam yukhasisuu dalika ma ayna khasisin wa ra'ow waxay arkeen ana alcumuuma aqwaa inuu yahay mid cumuumku uu xoog badan yahay fa awjabuu azakaata iyuu waajibiyeen fi sinfayni labada sinfiba waa ka waajibeen jamiican waa yahay wara'yiiba weli shiikhan ana qowla aljumhuuri asaxu waaye waa liishtimaali amri alxadiisi wuxuu kulminayaa jumhuurta maxaa yeelay nimankaasu mutlaqay qaateen nimankaa waxbay ay qayiideen taqyiiday sameeyeen waa jumhuurta taqyiida samaysay maalikiyadana mutlaqay qaateen waxay leeyihin kownul maashiyati saa'ima inay ahaato wahuwa aladii yajibu fiihi yajibu xamlu awali alxadiid waxaa waajibaya xadiidka awelkiisa in lagu xambaaro ayada fi libili lagu xambaaro calayhi id laa yucqalu la garamayo tacaarudu aakhara alxadiid maca awalihi tacaarudu aakhiri alxadiidi maca awalihi inuu xadiidka awelkiisa aakhirkiisa ou iskhilaafo la garan maayo xadiidka anas oo kulminaya kitaabka abubakrin faraa'ishiisa sadaqa waaye mawaashida dukira fiihi awalan waxaa lagu sheegay maqaadiiru zakaati libila lagu sheegay maqaadiirteeda uma dukira fiihi zakaatu alghanam bilafdi aan laguna sheegay oo laleeyahy fii sadaqati alghanam fii saa'imatiha idaa kaanat 40 fa fiiha shaatun ilaa reega lagu sheegay marka sidaas daraaddeed anwaacu lancaami alatii tajibu fiiha zakaatu wanisaabu kulli waa cashirkayna dambo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu